barnaamijkan oo muxiidiin uu duubayo waxaan idinku soo jeedinaynaa Soomaaliya halka joogta aad bay ula dhacday ra'yigii fiicnaa oo uu qaatay madaxweynaha Soomaaliyeed xukuumaddiisu oo ku saabsanaa dhibaatada ka taagan Qatar iyo dawladaha kale walaalaha in Carabtanahay marka ugu horeysa inaan sheegno weeye dawladdan xukuumadda maanta joogta oo hogaaminayo dawladda maanta joogta hogaaminayo Farmaajo Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxay soo celisay ummadda Soomaaliyeed qabkeedii iyo qarankeedii iyo dadnimadeedii iyo haybadeedii waad aragteen sida adduunyanaha looga soo dhaweeyay magacaasay u yeelatay arintana waxay soo kordhisay Soomaaliya inay tahay dad ka fikiraya karaamadooda iyo dadnimadooda waxaan aad ugu faraxsanahay mudaharaadka xamar ka dhacay oo loo dhigo lagu ayidayo maxay ahayd ra'yigaas qaraarka ay qaateen oo hogaamiyay Farmaajo waxa jirta dawladaha Carabta hadda isaya waa dad walaalaheena ayna ka maarmi karin oo taariikh dheer la leenahay oo dad aynu gacan qabanay waqtigii iyagu liiteen innagana waqtigeenu liidana gacan qabtay oo ka qayb galay dagaalkii 77kii iyo abaarihii dhacay iyo dhibaatooyinkii dhacday sida darteed wixii dhibaato oo awayna dhibaysa kala tag oo doona faa'iidadana manaha dawladda Soomaaliyeedna waxay muujisay xilkasnimo ay gudatay haybad leh oo ummadda Soomaaliyeed taariikhda u galaysa ummadda Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaynaa in dhabada aynu qaadnay dawladda Soomaaliyeed qaaday xaq kastaba ka qaaday in gacan lagu siiyo ka dhigista maxay ahayd hawlaha kale oo la wado dadka hubka laga dhigayo walaalayo wax cabsanina danteena ku jirta meeshii dhibaato jirta oo wada tashanayna arinta ay la qaatay ummadda Soomaaliyeed qaadatay waa tallaabo wanaagsan oo himilo Soomaaliyeed meel marinaysa waana ku mahadsantihiin ilaahay waxaan idinka baryaa yaa nabadgelyo iyo horumar iyo dalsan oo Soomaaliyeed oo nabad ku soo noqda xukuumadda Soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa inay adkeeyaan cadaaladda iyo kala dambeynta ummadda Soomaaliyeed si hawsha ay qabanayaan oo hadda Soomaaliya dhami ku raacsan tahay oo meel marto